Somaliland ayaa ka wanaagsan wadamada Djibouti, Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya marka la barbar dhigo dhinaca xorriyadda hadalka, xorriyadda ganacsiga, xorriyadda siyaasadda, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray ururka Freedom House ee fadhigiisu yahay magaalada Washington ee wadanka Mareykanka. Warbixinta ururka ayaa lagu sheegay in ay Somaliland ka mid tahay wadamada qayb ahaan xorta ah, kuwaasi oo ay ka jirto xorriyad, taasi oo ah mid aan dhamaystirnayn, balse marka la barbar dhigo wadanka Kenya ayaa ah kan ugu wanaagsan dhinaca xorriyadda Geeska Afrika. Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya ayaa ku jira wadamada ugu liita dhinaca xorriyadda, kuwaasi oo lagu sheegay in gebi ahaantoodba aanay ka jirin wax xorriyad ahi. Haddaba maxay warbixintani uga dhigan tahay Somaliland? Yaxye Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa inoo sharaxaya. Somaliland warbixinta soo baxday waxay ka horeysaa badiba wadamada Geeska Afrika waxa kaliya ka horeeya Kenya. Somaliland waxa ka horeysaa Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, waxaanay kaalinta labaad ka galaysaa Geeska Afrika hadii la eego, iyadoo hadii boqolleyda lagu qiimeeyo aan ma miqyaas kala qaato boqolkiiba 43 keentay halka Kenya ka sareyso kaliya 48 keentay, laakiin Ethiopia oo 26 iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo runtii ah meelaha ugu daran ee xorriyad aanay ka jirinba caalamka lagu qiimeeyo oo 7 out of 7 keentay, waxay ka horeysaa inta waddanba Geeska Afrika marka la eego, iyadoo Afrikaba caadiyanba ay dhib tahay oo wadamada ugu hooseeya adduunka oo kale ay u badan yihiin wadamo Afrikaana. Haddana Somaliland runtii saddexda qaybood ee ugu waaweyn ee category loo qaybiyo warbixintan waa qayb adduunka qaybta ugu horeysa waxa weeye qayb wada xor ah, qayb haaf ahaan xor ah, iyo qayb dhammaanteedba guud ahaanba aan jirin wax xorriyad. qaybta markaa haaf ahaan xorta ah ay Somaliland soo galaysaa ama 50-50 waxa la yiraahdo. Warbixinta waxa la qiimeeyaa asaasiyan bal horta in la eego jawiga siyaasadeed ka jira mid deganba mise waa mid fawdo ah. Sidoo kale waxa la eegaa sharciyada ka jira iyo sida loo dabaqo legality, the legal environment. waxa kaloo la eegaa bal wadankan dhaqaale ahaan iyo halku maraya hanaanka lacag helineed ama se ma garanaysaa economic environment-ka isaga laftiisana dhaqaalaha aad baa loo eegaa. Marka iyadoo laga duuleeyay saddexdaas rukun waxa ka sii hoos farcama oo warbixintu si khaas ah ama se balaaran u sii faahfaahaysayo ku base gareysaa warbixinta soo saaraan siyaasadda oo kale sidee baa wadanka looga bartis karaya ama political environment-ka wadanku siduu eegyahay, qaab nooceeyo leeyahay, muuqaal nooceeyo leeyahay, raay dhiibashada muwaadiniinta sidee intee leeg baa loo ogoliyay dadku inay ka qayb qaataan siyaasadda, intee leeg baa imka kale la dabaqaa shuruucda ama se rule of law wadankani ma leeyahay, ma jira garsoor madax bannaan, doorashooyinka iyo qaabka nidaamka loo codeeyo iyaduna waa waxyaabo la qiimeeyo. Hase ahaatee dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa aaminsan in dhinacyada kala duwan ee xorriyadda Somaliland ay hoos u dhacday sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo ay jiraan wargeysyo la xiriiray suxufiyiin, hal abuuro iyo culimo la xidhay. Marka loo eego waxyaabaha Somaliland ka dhacay sanadkii hore iyo sanadkan hadda taaganahay, tusaale ahaan haddaan dul istaago xagga xorriyadda madaniga iyo kale ay ka mid tahay xorriyadda hadalka, ay ka mid tahay mudaharaadada salmiga ee dadku kalaama sharcigu ogol yahay, ay ka mid tahay dadku inay ururo madax bannaan sameystaan oo cilmiyeed ama xirfadeed, ay ka mid tahay dadku inay aragtiyada cabiraan iyagoo si aan cabsi ku jirin. Somaliland 2018 ama sanadkii tayo kale sida ku cad warbixinta xuquuqul insaanka soo saartay 1 December waxa la xidhay 55 qof baa loo xidhay aragtiyahooda. Marka 55 qof waxa ka mid ah 28 wariye. 28 ka wariye 10 ka mid ah dacwada lagu oogay, intii kalena dhammaantood ka gadaal waa laga sii daayay. waxa sidoo kale sanadka la xidhay 7 qof oo dhammaantood loo xidhay aragtiyahooda oo ay ku qoreen baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook iyo wargeysyada. waxa ka mid ah dadka nin Maxamed Kiisa la yiraahdo oo bartiisa Facebook ku qoray madaxweynuhu waa local oo ay maxkamadda ku xukuntay 18 bilood xariga. waxa ka mid ah Abwaana Naciimo Qorane oo maxkamadda ku xukuntay 3 sanadood kadib markii ay barteeda Facebook ku qortay qoraal. waxa ka mid ah dadka loo xidhay aragtiyada waqtigaas Boqor Buurmadow oo isna aragtidiisa ku cabiray isagoo markaa khudbad ka jeedinay meel carmo la yiraahdo Boosaaso ku taala Puntland in laba Somaliland iyo Puntland ay kala qaadaan ciidamada ku dagaalamay waqtigaas ka raqay maxkamadda hal maalin ku xukuntay 5 sanadood xariga. waxa sidoo kale dhacay waqtiga
5 Febraayo ee sanadkii hore tagay 2018 saddex qof oo naafo ah oo ka hor mudaharaaday xuska maalinta naafada adduunka 3 December 2018 inay maxkamaddu ku xukunto 3 sanadood ay kamid ah waxa kale oo waxyaabay sanadkii hore dhacay kamid ah in aqal warbaahineed la xanibay dawladda xirto kamid ah warkiiska waa bariyo kale oo inkastoo markii dad maxkamadda rafaanku ay jabisay xayiraadii aan uga madcalinayna warkiiska uu soo weli dacwadiisa taagantay maxkamadda sare marayso foorro la soo dacweeyay dacwada ku socoto hadda go'aan ay maxkamadda gobolka u dirtay Sun News iyo SBS TV oo wasiirka warfaafintu xayiray waxa kale oo iyadana jirtay waqtigiis 18 inay soo baxayeen go'aano intimidation ama lid ku ah xorriyadda warbaahinta oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta oo hadii jeer mooday inay u muuqdeen go'aano lagu baacsanayo ama lagu dhibaateynayo lagu kadeedayo warbaahinta madaxa banaan ee ka jirta Soomaaliland marka waxa soo dhan la eego waxaan aaminsanahay in aynu ka yarnahay 43% oo aynaan gaadhin halkii la rabay ahay 100% oo rajaynaya in Soomaaliland gaadho sanadaha soo socda si kastaba ha ahaatee warbixintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xabsiyada Soomaaliland ku jiraan maxaabiis kala duwan kuwaasi oo u xidhan arrimo la xiriira fikradahooda oo ay u cabireen siyaabo kala duwan. Khalid Foodadi, Goobjoog, Hargeysa.